qaar kamid ah waalidiinta dhalinyaro si sharci darro ah ugu xiran wadanka Tanzania ayaa ka codsaday dawladda federaalka Soomaaliya inay ka shaqeyso sidii loo soo deyn lahaa dhalinyaradaasi oo in ka badan muddo 10 sano ah ku xiran halkaasi. Dhalinyaradan ku xiran wadanka Tanzania ayaa ahaa kalluumaysato ka jalaabanayay xeebta Soomaaliya, waxaana maraakiib si sharci darro ah u kalluumaysanayay xeebaha Soomaaliya ay ka qabteen xeebta Kismaayo, waxayna geeyeen wadanka Tanzania iyagoo ku eedeeyay burcad badeednimo sida ay sheegeen waalidiinta. Waxa dhalinyaradaasi ay gaarayaan 10 dhalinyaro Soomaaliyeed, waxayna ku qabaan xabsiyada ku yaala wadankaasi Tanzania dhibaatooyin iyo duruufo nololeed iyagoo la kulmo jirdilo loo geysto iyo ciqaab fara badan sida ay sheegeen ehelada dhalinyaradaasi. Qaar kamid ah waalidiinta dhalinyaradooda ay ku xiran yihiin wadanka Tanzania ayaa ka codsaday dawladda federaalka Soomaaliya inay u soo daayaan caruurtooda oo dhibaatooyin fara badan ay ku haysato xabsiyada ku yaala wadankaasi Tanzania. dawladdeena sharafta waxa ka codsanaya anigoo hooyo Soomaaliyeed hooyo ilmaheedii dhibaataysan yihiin dawladdeena xukuumadeena wasiirada xildhibaanada waa dadkii annaka noo dhaartay dadkii noo dhaartayna kamid nahay dadkii durbaanadu u garaacayo soo dhaweeyaan kamid nahay. waxaan ka codsanaynaa wiilasheenaas dhibaataysan inay noogu dacwoodaan inay wiilasheena noo soo daayaan ayadoo codsi ay tahay dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre. waxaan ka codsanaynaa siday hooyooyinkii kale uga farxiyeen iyo aabayaashii kale inay annagana nooga farxiyaan. wiilashayadu way dhibaataysan yihiin 10 wiil ayaa waxay ku xirantaa dawladda Tanzania. waxay naga maqayn muddo 10 sano ah anagoo waalidiinta wiilashaas oo dhan 10 meesha ku xiran. waxaan ka codsanaynaa dawladdu inay wiilashaas ay noo soo badbaadiyaan. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa horay ugu soo deysay dhalinyaro Soomaaliyeed ee si sharci darro ugu xidhnaa wadamo fara badan ee ku yaala caalamka, iyadoo dawladdu ay wado dadaalo ku aadan sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan xabsiyada dalka dibadiisa dib ugu soo celin lahayd dalkooda hooyo. Muuse Cismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.